بسم الله الرحمن الرحيم waxaan maanta halka tacsi uga dirayaa geeridii foosha xumeyd ee ka dhacday dekada Boosaaso gudaheeda oo lagu dilay maamulihii dekada Boosaaso Paul Anthony Formosa iyo shirkadda maamulka dekada wada ee B&O tacsidaas oo ku socoto shirkadda eheladii uu ka geeriyooday dhammaan dadka reer Puntland falkan oo ahaa fal argagixis ah oo aad u fool xun waa dhaqan ay baryahan oo dhan la beegsanayeen sida ummadda Puntland iyo dadka Soomaaliyeed oo dhan noloshooda u halisgelin lahaayeen haday tahay noloshooda dhaqaale midooda nafeed iyo sumcadoodaba barnaamijkan maanta lagu dilay Paul ma aha dil loo geystay shakhsi maamulaha oo kaliya waa dil loo geystay ummadda Puntland oo loogu talagalay in la baabi'iyo horumarkooda iyo dhaqaalahooda sumcadooda iyo barnaamijyada ka socda in dalka lagu horumariyo arintaas baaritaankeeda cid kasta oo lug ku yeelata ama dalka had joogta ama dibadeeda had joogta waa dambiilayaal ka galay dambi dadka reer Puntland cid kasta oo ay ku cadaata arintaasna waxaan ka qaadi doonaa talaabo sharci ah oo ku waafaqsan arintan ma oran karno arin argagixis kaliya waxa ka dambeeyana waan ogaan doonaa waa arin lagu baabi'inayo shacabka Puntland iyo horumarkooda dhaqaalahooda lagu wiiqayo mustaqbalkooda lagu dilayo waxaan u baahanahay inaan dadka reer Puntland u sheegno dagaalka qaawan ee dhinacyada kala duwan uga socda inay ka digtoonaadaan in ay meel uga soo wada jeestaan in inta ku dhex dhuumanaysa oo uga timid meelaha kale iyo inta u dhalatay ee khaldan ee iyagana la adeegsanayo mustawahi rabaan ha joogaane waa inay u diyaar garoobaan dagaal ka dhan ah oo ay dadka reer Puntland isaga qabanayaan dadka reer Puntland sida lagu yaqaano waa dad ilaashada karaamadooda iyo sharaftooda iyo amnigooda aan ogolayn inay cid kale intay meel uga soo duursho inay danahooda baabi'iso dawlad ahaan iyo shacab ahaan waxaan diyaar u nahay inaan gacan adag isaga qabanno cid kasta oo jecel inay mustaqbalkeena ay wax u dhinto waxaan cadeynayaa anoo magac dawladda ku hadlaya in dadka argagixisada iyo inta la shaqeyso oo dhan ay heli doonaan caqaab ay mutaysteen oo adag oo aan naxariis lahayn waxaan farayaa dhammaan ciidamada Puntland meel kasta ay joogaan inay heegan galaan inay ilaaliyaan cadawga gudaha iyo midka dibadda uga imaanaya labadaba inaan wax naxariis loo gelin cid kasta oo lagu tuhmo in ay fal argagixisa u wado bulshadeena oo ay rabto inay bartilmaamaysato haldoorka reer Puntland oo dhaqaalaha iyo mustaqbalka dadka shaqeeya iyo dadka ajaanibka oo dalkeena gudihiisa ka shaqeeya si ay horumarka wadanka qayb uga ahaadaan waxaan aad uga xumahay wixii dhacay waxaan xaqiijinaynaa cid kasta oo falkaas uu ku cadaado in talaabo sharci ah oo adag oo naxariis lahayn laga qaadi doono waxaan ugu baaqayaa dhammaan dadka khaasatan reer Boosaaso in ay ka foojignaadaan in guryahooda iyo dagaamadooda iyo meheroodahooda ay ku soo dhuuntaan dad sharwadayaal oo raba inay ummadan mustaqbalkeeda ay baabi'iyaan arintan waxaan uga tacsiyeynaa shirkadda dawladda Imaaraadka oo shirkadaas ay ka tirsan tahay Paul iyo qoyskiisa iyo wadankiisa waxaan aad uga xunnahay wixii dhacay waxaan rajaynaynaa waxaas dhacay inay ku koobnaadaan fal argagixiso oo ka dhan ah dhammaan ummadaha adduunka oo meel kasta ka dhacay inuu la mid yahay inay Puntland raalli ka ahayn inay aad uga xun tahay inay meel uga soo wada jeestaan bulshada caalamka iyo Soomaaliduba sidii la isaga qaban lahaa dadkan xaq jirka ah ee doonaya inay deganaanshaha adduunka khaasatan gobolkan aan ku noolnahay ay waxyeelayaan oo ajandayaal ka baxsan ajandayaasha wada noolaanshaha wata haddaan Puntland nahay waxaan cadeynaynaa dadkaasina wax naxariis ay nooga jirin midab kasta uu leeyahay cid kasta oo dhexmaraana ay la mid yihiin ninkii isiraahda ka dhex ganacso oo guri ka kiree ama wax u fududee ama hunguri u geeyo dawladdu waxay u ictibaaraysaa inuu isaguna argagixisan yahay oo waxba ka duwanayn fal kasta oo arintaas meelihii uu soo maray cidii lagu tuhmo talaabo adag baa laga qaadi doonaa dilka maanta dekada Boosaaso ka dhacay wuxuu ka dhigan yahay dil lalo bartilmaameystay
in dadka Soomaaliyeed wax horumar aysan gaarin khaasatan Boosaaso iyo Puntland guud ahaanba. Boosaaso waa isha dhaqaalaha gudaheeda in dad marti u ah dalkeena in lagu dilana waxay u keenaysaa sumcad xumo iyo dhaawac weyn oo ay kalifayso in cid kasta oo nolol u soo dooran lahayd ama horumar ka sameyn lahayd ay ka tagto. taasna waxay dhaawac ku tahay dawladnimadeena iyo bulshadeena. dadka reer Puntland waxaan ugu baaqayaa inay amniga ka shaqeeyaan, inay wadajir ka shaqeeyaan, inay dadka sharwadayaasha ku soo dhuumanaya ee meel uga soo wadajeestaan. ciidamada qeybahooda kala duwan iyo meelaha habaca ka dhacay ee dadka faldambiyeedka sameynaya ay mareenna waxaan rajaynaynaa inaan tallaabo ka qaadi doono. waxaan dhammaan maamulada gobolada iyo kuwa degmooyinka iyo saldhigyada madaxdooda iyo cid kastoo laamaha amniga ka shaqeysa farina meel kasta ay joogaan inay feejignaan dheeraada muujiyaan, u diyaar garoobaan in ay wax kasta oo ummadooda liddi ku ah ay qabtaan. haddaan dowlad nahayna ilaahay idankiisa ahmiyadda ugu horeysa xooggii waxaan saari doonaa sidaan amnigana u sugi lahayn, argagixisadana u ciribtiri lahayn.